waxaan kulley nimaday isha gobka oo meel aad u qiimo badan waxa la dhameeshay isha gobta oo meel dadkoo dhan meeshaas waxaan isleeyahay waa meel aad iyo aad ugu wanaagsan caafimaadka iyo maskaxda wala qato joojo macaan joogo meesha wallahi waa wax wallahi daan inaba caadi ahaan wallahi harqabu bidayay hargeysa quruxdii hal hayskay hargeysa hawadaada kaliyan hargeysa cidi aan heli karin hargeysa sida hogol dhacaysay hargeysa haybad wacanidayay hargeysa harqabu bidayay hargeysa quruxdii hal hayskay hargeysa hawadaada kaliyan hargeysa cidi aanay heli karin hargeysa halkii laygu dhalay bara lama hurane aan ku haminaya hargeysa halkii laygu dhalay bara lama hurane aan ku haminaya halkani waa isha gobka ee magaalada Hargeysa 5 kiiloomitir waxay u jirtaa magaalada Hargeysa dadka halkan jooga waxa ay u soo boqoleen sidii ay uga qayb qaadan laayeen nafiska iyo deganaanshiyaha iyo jawiga kala duwan ee ka jira goobtan run ahaantii goobtan waxa ka jira deganaanshiyo kala duwan kaas oo sababay dhir ubax kala duwan leh biyo fadhiisin iyo shimbiro jijiqdaaya sidoo kale dooga cagaaran oo dhulka sida uga buuxa iyo waxyaabo kala duwan bal haddaba mikrofoonka telefishinka codka bariga Afrika waxa uu la dhex qaadi doonaa bulshada ku dhaqan goobtan aad iyo aad waa meel jawgeedu degan yahay shimbiraha iyo dhawqoodi iyo codkoodi iyo waa meel aad iyo aad loogu xasileeyo nafta ku xasilayso asoonaasina yaana kaba tagin baa magaaladii Hargeysana waad aragtaa waxa ka soo sokaysaa adigu ilaa ugu yaraan 5 kiiloomitir ayaa laga soo baxay waxna nimeemka anagu Allahumma sa'aan in asarkii ka hor waliba ayaanu nime saan isku lahayn yaan meesha leedii ka buuxin imanka waxaan ku jirnay indhaynta beerta xagga inaga xigta iyo tan waan soo eegnay labadooda tii kulliba galaasku uu ku afuri lahaa aadna waan ugu faraxsanahay inaan ka group ahaan ka arday ahaan anagu waliba taxadirkeediina leh oo aan bilaa maadaama xanuuna dalka ka jiraan ilaahay anaga dul qaada anagu taxadirkeedii sameynayna hadana aanu waqtiyada kamid ah wada qaadano maadaama bishii Ramadaan aakhirkeedii lagu jiro aad iyo aad badukuna ka saxaafadahan u mahadsantiin waan idin salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkuna waa meesha loo soo marnaa tago ee loo yaqaano isha gobka waxa halkan keenay wadii meeshan farxadda iyo lagu qaato laguna afuro jawi wanaagsan meeshan waa meel aad iyo aad u barwaaqo dadka waxaan rujeen doonaa inay wada iman doonaan sanadka dambe iyo imika xaggan waxa horta joognaa anaga asxaabteeda kuwaas oo ah ilaa meelaha 13 qof ka soo doonay inaan kuna afurno farxadeena ku aan dareenkayga maanta ma soo koobi karo ilaahay yaa loo siyaado marka dadku dhalinyarada waxay timaadaan soo sameystaan afur sawiraan ugu galaan maxaa ahaa baashaal ku sameeyaan caways intaas waan u beenaa meesha marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bahda bariga Afrika telefishinka marka xigta magacaygu waxay Nasri Waxaad Maxamed maanta waxaan ugu imaaday xaggan si aan asxaabtida ula qato joojo macaan joogo meesha wallahi waa wax wallahi daan inaba caadi ahaan wallahi qofka agamka marka hareer kasta beegtid waxa dad joogo waxa soonaysa dadkii meesha xaggan bay wada yimaadeen magarasa marka wallahi shucuurtada lama soo koobi karo wallahi sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd maanta ay tahay maxaan ku raadaay 27 Ramadaan sanadka 1441 ayaa waxaan maxaan ku raadaay halkan xaflad yar oo kooban aan ku qabsanay aniga family-gayga qayb kamid ah khaasatan qaybtan waliba anigu waalidka u ahay anigu waalidka aanan yahayn qaybtii ka timiday waliba America ayaa waxaan ku qabsanay xaflad yar oo kooban si la jilgad qayb halkan wada taagtaagan bay u badan yihiin waxaan kulley nimaday isha gobka oo meel aad u qiimo badan
qurux badan dalkeena meelaha kulley maxaan ku rahay in lagu soo hirto hay tahay qofka bini'aadmiga meelahan oo kale markuu arko Europe iyo meelayo kale marka la tagay say dad ka sheekeeyaan kulley America familiyadeeda kale baa joogaan ma tagine laakiin lacaga far badan ma meelahan lagu soo galaa si la ajilgeed halkan waxa weeyaan meel aad indhahu qofka bini'aadmiga ay ugu doogsanayaan waxaan leenahay dhalinyarada kulley dalka joogta iyo dibadda joogtaba meelahan oo kale u dalxiis kale si ay maskaxdiina u degto si la ajilgeed baan anaguna ciyaalkayagii iyo dadkayagiiba u dalxiis keenay si ay indhahoogu ugu doogsadaan qolyahan programka kulley iga duubaya ee TV-gana iyo dhalinyarada kale kulley soo qaban qaabisayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jawiga maanta wallaahi aad buu fiican yahay waxa la dhahaa meeshan isha gobta oo meel dadka oo dhan aad u wala yimaadaan rabadaanta siib ahaan iidaha iyo 10 dameer rabadaanta ay dadkani waxay jecel inay meesha afur ku samaystaan horta isha gobka meeshan waa jawi degan markaan stress haysto kale markaan isku buuqayo kale ayaan imaada jawigan ku degdegsta nafteed happy bay ku dareentay in badan waana jeclay inaan sawiraanta inta ugu badan halkan ku galo waana jeclay nolosheeda inta ugu badan halkan ku qaato waxaan ugu haynaa dadka ugu bushaareynayna dadkii isha gobka iman jiray ee meel wada green oo sawirka ku gali jiray waxaan u haynaa gidaaradii iyo banaliskii ay ku galayeen sawirada oo nagu soo diyaarinay oo ciid mubaarak leh wax kasta leh showroom yaan u sameynay showroom aad u weyn baan sameynay waxaanu sameynaynaa bogcado every family waxaanu u dejinaynaa meel annagoo ugu xidhayna qayd insha allah bidmillaahi kariim waad nala arki doontaan annagana howlgalkii iyo diyaargarowgii ku jirnay saidikuba la socoteen family kasta markaan halkaa dejino family uma talaabi doono insha allah dadkuna waxay isku jiri doonaan 3 mitir tukaankii baanu haynaa cold drinkii leexooyinkii familiga leexada koobaad ku ciyaaraa iyo familiga leexada labaad ku ciyaara hal mar bay ka wada bixi doonaan leexooyin numberska ay loo sameeyo maanta waa maalintii khayrka lahayd ee 10 cishe ee dambe ee Ramadaan ugu dambeysay waxaan jeclahay horta bulshada Soomaaliland inaan u sheego meeshan waa meesha isha gobka la yiraahdo in badan cod iyo hadalba wad ku maqasheen waxaan doonayaa horta ma sha Allah halkan 24 saacadood oo maanta baan joogay farxadayda lama koobi karo joogayga lama koobi karo lamana qiyaasi karo halkan waxaan jeclahay bulshada Soomaaliland inaan uga sheego inay maalinta ciidka hadii Ilaahay ka dhigo aan ku qabanayno meel yar oo raaxa oo ciyaalku ku ciyaaraan soo dhaweyn fiican oo qurux badan oo carruurtu ku farxaan oo dadku farxaan jooga macaan ee quruxda badan leh baan ku soo dhawaada doogan isla markaana u rooban jawigeeduna cid wala kastoo timaadaba ay aad u cajibinayso isla markaana aan oran karno inta joogta waxa ka timaado maalmo waxa ka badan inta niyada ku haysa inay balmarun caga soo galiyaan meeshaas markaa kulli waa nimcooyinka Ilaahay nagu galaday maadaama oo aanay magaaladu Hargeysa xayndaabkeeda gudaheedu aanay lahayn meelo saa qurqurux badan lagu dalxiiso aan lahayn dadka badankooda 95% waxay yimaadaan duleedka magaalada Hargeysa halkaas oo ay si aad u qurux badan ugu maxan ku raadayay damaashaadaan ku soo afuraan maanta kalena waanu afurnimi maalmo ka horeyso kala waanu nimi tawa alxamdulillah waa nimcada aad arkaysaano meel wala kasta way biyo dhigtayo alxamdulillah rabbil caalamiin inta ka badan waan jecelnahay annaga iyo caruurahayga xaasaskayga badan anigu kala xaaskayga caruurtooda kala waan keenaa waqti inta ugu badan chance ka hayno inta ka badan kama niyadna waan u sii boholiyoonaw marka waxaan rajeynayaa insha Allah inta ka badanba inaanu maxaan ku dhahdayay nimaadno oo aan ku soo dalxiisno oo aan ku soo damaashaadno horta dimeeshan markaan imanayo badanaa waxaan u imaadaa san confuse amba iska biyo problemada haystaan ku soo halfkareeyo markaan alaali markay maadaan dooga iyo greenkaas iyo biyaha yaraan isku helo relax ay naftooda yar dareentay mararka qaar anoo kaliya ayaan xaafada ka soo baxaa misana anoo imaado man sarka wax soo jitay la hada garmaayo taas ay u teedana xataa soonka hadii maanta tabcan la raado rabadaan tuu yar waanta rabadaan lafteeda dadka waxaan leeyahay soonta way kala qafiifin kartaa oo way ma dareemi kartid wax gaaja amba wax harada ma dareemi kartid taa darteed wax sababi kartay inaad dooga iyo greenkaas aad naftuna ay mar yar baahan tahay awoodelinta waxaan ku soo koobi doonaa warbixintii aan idinka diyaarinay isha gobka dhinaca kamarada waxa ku hawlanaa injineer Deero waa anigoo Rabiila Axmed Diiriya waxaan idinkaga taganaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh harqabu bidayay hargeysa quruxdi
halhayskaay hargeysa hawadaada kaliyaan hargeysa cidi aanay heli karin hargeysa sida hogo dhacaysay hargeysa haybad wacanidayey hargeysa harqaboobidayey hargeysa quruxdii halhayskaay hargeysa hawadaada kaliyaan hargeysa cidi aanay heli karin hargeysa halkii laygu dhalay bara lama hurane aan ku haminaya hargeysa halkii laygu dhalay bara lama hurane aan ku haminaya hargeysa ducaan kugu hagoogay hargeysa cadow kuma haleelo hargeysa si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli janaalkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka